golaha guurtida jamhuuriyadda Somaliland ayaa markii lixaad muddo kordhin u sameeyay golaha wakiilada Somaliland oo muddo dhaafay muddo ku siman 9 sano sidoo kale golaha guurtida Somaliland ayaa eegna dhankooda waxay isku kordhiyeen muddo gaadhaysa 3 sano arintaasi ka soo yeedhay golaha guurtida Somaliland ayaa shacabka kala duwan ee Somaliland siyaabo kala duwan ay u falanqeeyeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa arintaasi isku maandhaafay waxaana arintaasi siyaabo kala duwan uga hadlay Xasan Cabdikariin Micaad xogayaha xisbiga Wiciid ee gobolka Awdal iyo sidoo kale Axmed Maxamed Cadoosh oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Boorama xildhibaan Cadoosh ayaa sheegay inuu isagu soo dhaweynayo muddo kordhinta loo sameeyay golaha wakiilada Somaliland wuxuu ku tilmaamay runtii muddo kordhinta golaha guurtida ay sameysay maadaama ay dalka ka jirtay marxalad badan oo ah saami qaybsigii kuraasta golaha wakiilada iyo isku dheelitirka xukuumadda oo lagu marsanaa muddo sidii looga gaari lahaa xal in golaha guurtida ay maanta guteen qodob dastuuriya oo ay iyagu leeyihiin mandate-ka ay iyagu leeyihiin oo dastuuriya inay 2 sano ku kordhiyeen waanu ku hambaleenana sababtoo ay tahay wax weeyaan waxaanu chance u helaynaa in laga wada hadlo wixii ay umadu teen muddo qaska iyo kacdoonka dad ay u ka jiray Xasan Cabdikariin Micaad xogayaha xisbiga mucaaradka Wiciid ee gobolka Awdal ayaa sayna dhigiisa ka soo horjeestay muddo kordhintan markii lixaad loo sameeyay golaha wakiilada Somaliland wuxuu ku tilmaamay golaha guurtida ee qeyr sharciga ku fadhiyay ayaa waxa uu jideeyay maanta ama uu muddo kordhin ku sameeyay golihii wakiilada ee xaraanta markii hore ku fadhiyayna marka waxaan leeyahay in hal xaraan nirig xalaal ma dhasho wuxuu maanta sharciyeeyna golihii wakiilada oo Somaliland qarinimadeedii godmad ku ritay ayuu sharciyeeyay golahaasi maanta inankii dhashay waqtigii la doortay 2005 maanta Somaliland waxay noqotay inay qaangaad dhaaftay inankii xilliga moogtahay dhashay inuu guursaday oo ilmihiisii 3 ama 4 sano marayo haddaba marka waxaan leeyahay Somaliland waxaan iskugu iman doonaa xisbiyada mucaaradka haddaan nahay shirta la qaranaan iskugu iman doonaa qarankana lagu badbaadinayo